ila sawir saaxiib adigoo habeenka guriga iskaga soo hoyday si fiican iskaga casheeyay kadina sariirta iska aaday iska seexday hal mar aad aragtiin in hareeraha wax ka dhacayaan kadib markaad soo baraarugtay aad aragtay adoo markab ku dhex jira markabkaas markaa ka soo baxayna dibadda soo fiiriseen aad isku naxday haddana aad aragtay badii oo kaxsan oo markabkiina kula qarqoomi rabo maxaad samayn lahayd mafaatixda akhrisan lahayd animigan habeen walba ma idin soo dhigaa 2 xalqo mise 3 maalmoodba 6 xalqo ayaan isku soo dhigaa hal mar isku soo qulaaseeya bal comment igu soo qor kii codkiisu bato ayaan soo qaadan doonaa insha Allah imikana inoo bilaaba animigan oo faahfaahsan animigu wuxuu ku bilaabay magaalada Tokyo oo magaalada degan dadku subax iska soo kacaan qaar iska ciyaarayaan kubad gabadh yarna la ciyaarayso walaasheed waxaan tusay nin kale ninkaasna piano iska ciyaaraya hal mar waxa dhacay animigu isku jaro gabadh yar gabadhaas waxay ka soo dhex kacdaa doon kadib way naxdaa xitaa meesha maxaa ka dhacaya kadib wax bilowday hooyadeed u wacdo laakiin hooyadeed uma imato markaas wax soo gashay gabadhaas waxay haw malin inay hooyadeed tahay waa gabadh kale doontan ka anaaqooda ama hogaamiye ka waxayna ku tiraahdaa aamus bad ayaa kacsan maasa gabadhu may fahmi weeyday wax ku tiraahdaa bad maxay keenay gurigeyga aan joogay maasa ku tiraahdaa dibadda oo soo bax hal mar gabadh dibadda soo baxdo waxay aragtaa badii oo la socota yani doontii oo la socota badda dhexdeeda oo baduna kacsantahay dhimasho ku dhow yihiin maasa gabadhu waxa dhacday in murugootay xagaas ku aan fariito ku naxdo markaas waxa dhacday in badii si kacsanayd in hal mar doontii la guddoonto kadib gabadh yar wax ku dhacdaa bad waxana ka soo badbaadiyay nin kale ninkaasna wax gacanta qabto nin kale oo buush korsan kadib buushka ay soo fuulaan waxa dhacay inay u soo dhaqaaqaan meel kadib meesha markay soo dhaqaaqaan waxay arkaan jasiirad inay ku taalo jasiiradaasi soo galaan jasiiradaas markay yimaado waxay yiraahdaan jasiiradu waa jasiirad degan oo jasiirad qurux badan is a beautiful island markay soo galaan jasiiradii ayaa waxa dhacay inuu ku jiro mid mushaaqo dib badan kaas wax bilaabno gabadha miskiinta ah animiga ugu soo bilaabay uu fowdeeyo maasa wax soo ka celiyay ninkii kale badda ka soo badbaadinay gabadha wuxuu ku yiraahdaa gabadha ka fogow ku yiraahdaa nacsiyo kadib waxa dhacay in socodkooda iska sii wataan maasa ninkii wuxuu bilaabay inuu gabadhi hogaamiye ahayd inuu bidii ku qabto ku yiraahdaa isdii gabadhi ahayd maasa gabadha ku tiraahdaa maxaa rabtaa maasa ku tiraahdaa wuxuu markaas ku yiraahdaa kaliya waan kaftay meeraale maasa gabadha wax ku tiraahdaa bidida uu baahnaan doonaa ee maalin noo dhigo noo xifdi kadib wax ku yiraahdaa waa yahay markaas waa dhacday in xoogaa kayntii dhex socdaan maasa gabadhi hogaamiye ahayd gabadhi miskiinta wax ku tiraahdaa gabadhi ahay orasho soo raadsa wax cuntid ana waxa kuma hayne kayntaasna waxa ku yaala miro iyo muus waxba ka baxay meelaha hor ka soo gogooso wax bay ku tiraahdaa way ahay ku tiraahdaa gabadhi soo irbaxda miskiintii maasa waxaan arkaynaa gabadh kale markaas waxa dhacda in gabadha ay soo dhaqaaqdo dhankii shalaal ama biyo dhac waxayna istiraahdaa ka shuba xagan biyo markaas ay biyo shubanaysa ay waxa soo weerartay namla weyn kadib gabadhi way naxdaa waxayna bilowday inay qayliso tiraahdo caawiya maasa waxay imata koox kale kooxaas oo dhan inay gabadhi ka badbaadiso quraanjooyinka waaweynaa maasa gabadhan kooxna ay u imatay waa koox is garanayaan meel ka wada imaadeen asxaabi qisada animiga dib ay niga faahfaahin doonaan oo la socon doontiin ila socda fadlan muuqaal kale saara markaas waxa in gabadhi ku soo laabato meesha ay joogtay kooxda kale waxaa jira wiil yar ay walaalayihiin wiilka yar wuxuu ku raahdaa walaal ma noo soo heshay biyo maase ku tiraa biyihii anoo soo dar raba ama noo soo qaadi raba ay waxay soo weeraray bahalo maase waxa dhan ninkii la hadlo ku yiraahdo wiilkii yar adoo waxaad tahay qof dhib badan ninna waa tahay xaqi laga rabay inaad muuski wax soo googeysid ayaa hadal badan ugu wadaa afkaaga naga xid mar dambana la sheekaysan maase gabadh wax ku tiraahdaa wiilkii yar saama awla hadlin oo walaalkay maase wuxuu ku raahday maxaa ka galay wuxuu bilaabay gabadh darbaaxo maase gabadh wax ku tiraahdaa waxaad tahay qof dulmi badan wana ka argudan doona maase ku qasla ku raahdaa igada hadalkaaga badan wuxuu bilaabay meesha ka maasa waxay maadeen kale wuxuu ku yiraahdaa waxaas waa dulmi mudan maxaa sameynaysaa maasa ku raadiyay maxaa ka galay xublaan wiilkii asana caloosh ka laago maasa wiilku xalaysan in dhulka ku dhaco markaas waxa la gaaray habeenkii badii suxun u kacdo maasa ninkii wuxuu bilaabay gabadha cadaadid ku yiraahdo hal mar dambe afkaaga naga xid wuxuu bilaabay gabadha qoortii afka qabto bilaabay inuu cadaabo maasa gabadha ku tiraahdaa maxaa kugu sameeyay sida xun igula dhaqmaysaa laakiin isagu mar rabo inuu gabadhan yani si fiican ula dhaqmo oo wuxuu bilaabay mar walba inuu gabadha bilcaan u galaaco markaas habeenkii markii la gaaray badii ay istaagto caadurku jawigu caadi ku soo laabto ayaa waxa dhan ninkii dulmiga badnaa inuu soo galo gurigiisii hal mar markuu soo galo ayaa wuxuu arkaa dadkii meesha joogay oo dhan isaga la noolaayo oo dhan hal mar ay ku soo taageen bayskoolad waxayna u tashtaan in ninka dilaan maasa ninka wuxuu kana maxaa sameynaysaa saaxiibayaal iga daa heydilina maasa waxa dhan xabad ay ku furaan gabigooguba markaas ninka waxa dhan xaggaas ku geeriyoodo markaas animiga waxa dhayn uu go'o gabadh yar ee animiga noogu soo bilaag tirada ka ahayd iyo wiilkii caawinayay maasa gabadh wax ku tiraahdaa igaraale hoona xanuunka ku soo oo ina xumad ay ku yeeshana ku soo maasa wuxuu ku raahdaa dib adigu ma laha haday wiilkan maxaa ku dhacay animiga dib yar laabta xasuus waxaan tusayaa gabadhii hogaamiye ahayd ay gabadh yar ku lahayd markii hore soo raadsan cunto ama keent ka soo qaado ayaa waxa dhayn gabadhaas ay gabadh yar ku tiraahdo cuntada soo heshay itus maasa gabadh waxay tustaa waxyaabo yani cunto aan ahay maasa ku tiraahdaa waxan waa sun maasa wiilku ku yiraahdaa sun ma ahay aniga hubaydi ana dhadhamay waxa dhayn isaga dhadhamiyo wax markaas wixii isku bedelo sun wiilkina dhayn xagaas ku xanuunsado
haddaba aan ku laabana kooxdii ninka dilaya ee yacni ninka dulmiga badan la xabada la dhacay ninkaas miyuu geeriyooday waa maya ninkaas wuxuu isticmaalay daawooyin dhir wuuna ku badbaaday wuxuu ku yiraahdaa waxa rabtay inay dishiin laakiin anigu ma dhiman laakiin maanta laga bilaabo si fiican inuu la dhaqmi doonaa maadaama waxaad barteen cashir markaas waa dhayn kaynti soo galaan ninka wuxuu ku bilaabay inuu istaajo ku yiraahdo joogsada halis baa soo socotay ha soo laabana gabadhii yareeday ninkii markaas wiilku waxa dhayn soo caafimaado waxa ku tiraa caafimaad qabtaa masoo ku yiraahdo waa caafimaad qaba masoo ku tiraa alxamdulillah mid nooga asxaabay gaalada way yaqaanaan alxamdulillah way dhahaan alxamdulillah ilaahi waa aaminsan laakiin nabigay yani sallallahu alayhi wasallam ay diideen nabiga ku sali markaas waxa dhacda inuu wiilku ku yiraahdo ninkan iyo gabadhan hogaamiyana ahi waxbay qorsheynayaan waxayna rabaan anaga labayn waan ka yaryarnahay waxayna rabaan inay wax nagu sameeyaan ana waan ka shakisanay labadoodaba way si nagu la dhaqmayaan ayaan ka dareemay saadaleed wax noo haboona baxsanay ka waran masaga wuxuu ku tiraahdo waa runta wallahi ee number meeshan ka cararno masa wax dhayn gabadhii reedio ninka ka soo bacaran kayntii iyo kayntii dhex marayaan ay gabadhu wax ku tiraahdaa ma lahaan jirtay girlfriend masa ku rahaa wala haan jiray masaga wuxuu ku tiraahdaa magaceed lagu magacaabay masa ku tiraahdaa haana ay lagu magacaabay markaas ku rahaa wax lagu magacaabay haana masa ku raahdaa ma lahaan jirtay boyfriend masa ku rahaa maya astaghfirullah markaas waa socodkooda iska sii wataan gabadhiyada wadadii maraysa ayaa hal mar waxa ku dhici gaadho god ama yaan ubax afkiisa weyn markaas waxa ninka ka badbaadiyo wuxuu ku dhahaa meelaha waxa ka buuxa dhirta dadka cunta ama dhirtan geedahan dadka cunaa ee iska fiir ama iska ilaali mase gura waxay ku tiraa maasanta inta badbaadisay kadib socodkooda iska sii wataan wiilkiisa gabadh la hadlaya ayaa hal mar waxa geed xagga dab kaga yimaado waxa wiilkii inuu liqo markaas wiilku wuxuu ku yiraahdaa falan midida ay dhiib masaga wuxuu ku tiraahdaa midida hooyada leh ayaa iyadana waxa soo weerara geed kale geedkaas iyadana liqa masaga gabadhu iyadoo murugaysan yihiin waxay sameeyaan garan markaas waxa dhacda in aan arkin labadii qof ee hogaamiye ahaa labadan qof oo hogaamiye iyagana waxa soo weerara duuli ama jiirkaas waxa iyagu inay iska difaacaan way waxay haysteen midiyo waxa dhacay inay cunaan subhanallah ha soo laabana kooxdii kale waxa dhacda ayaa si kiisa waxa soo muuqdeen ninkaas ah inuu wiilku ka kala jeexo oo bixi ama geed ka liqay wuxuuna ku yiraahdaa meelahan waa halis iska fiiriya ama taxadara wuxuuna ku dhawa maasan tahay wiilkii kale iyo gabadhuna waxa dhacay shaqadooda iska sii wataan socodkooda iska sii wataan markaas waxa dhacda saddex qof iyagana soo waxa soo weerar duuliga ama jiirka dad cunka ahaa iyagana waxa dhacay inay sidoo kale iyagana ay dilaan ay ku casheeyaan markaas waxa dhacda in labadii qof ee saaxiibaha ah isiraahdaan meeshan iyo meel kale noo bana ma jirto saadare waan iska laabnaa labada qof ee hogaamiyana ahaa waxa dhayn meesha iskaga soo laabsan ay deganayeen masal labada qof ala wax ku raadaan waxa isku daysay inay baxsatin Soomaha arin baa niiga sheekeynaya naxdin uga ku raadaan way harika nooga sheekay markaas gabadhu wax ku tiraahdaa markaas gabadhu hogaamiyaha ahayd waxa bilowday inay sheeko ka sheekayso waxay tiraahdaa adduunyadii kale aniga naga baxsanayd waxa ku soo dhacay dhagaxaasina wuxuu bilaabay inuu dunidu bedelo baraf xagaasna cadceed kama jirto jasiiradan yar kaliya badas ay ka jirtaa cadceed lagu noolaan karo dunidii teknoolajiyada heer sare ah ee wanaagsan quruxda badneedna xagaas ku soo afmeermantay oo hadday dibadda tagtiin ama yani magaalada tagtiin baraf ma wax kale oo la kulmaysiin ma jiro dadkii kale ku noolaa magaalada iniga marka laga reebana way geeriyoodeen oo way barafoobeen markaas waxa dhayn ninkii xanaaqo miskiinka ahaa wuxuu yiraahdaa anigu gabadh baan la hadli jiray yani waxaan ku balansanay guur gabadhaana yani ay isjeclaayeen wuxuu gabadhaas inay dhimato ma yeelayo waxa dhayn inuu soo cararo oo meel imaado markaas gabadh yar kan miskiinta ka soo cararta wax bilowday inay dijiso ku tiraahdo waxa waa caadi hadhow dunida caadi iska noqon doontaa kadibna qof walba soo noolaan doona yani si ciyaalka inuu dijiso ay bilowdaan aanu soo laabano kooxdii kale ee meesha yani ama jasiiradan deganaa markaas kooxdiga waxay soo galaan god ninkii dulmiga badnaa ayagana hogaaminaya laakiin hadda miskiin uu eegay waay cashir baa la baray ninkaas wuxuu ku dhaca godka soo daba galaan godkii markay soo galaan ayaa waxa dhayn soo weerarto numuul ama yani quraanjooyin waaweyn markaas quraanti markay soo weerarto ayaa ninka wax bilaabay inuu jirkiisa gubo yiraahdo tadxii ay idin sameynayaan nafur bay idin sameynayaan meesha ka carara maasa wax dhayn dadkii la murugooda yiraahdaan may kama cararayno waan kula joognaa waan ku badbaadinayna maasa ku dhaahdaa intan dabka uu nool yahay jirkaygu nool yahay qiiqayo waa inta fursad haysatiin ee ka badbaadaysiin quraanta ee falan orta carara aniga aan naftayda in kulli aan waan dhimanayaa markaas aan kooxi kale iskaga tagaa ninkii namladii ama yacni quraantin wax dib iska laabto ninkaas waxa ku geeriyo ku gubto ma soo harkina labada qof waxa ka dhaxeeya xiriir ma xiriir jacayl waxa dhayn badi soo galaan maasa gabadhu waxay ku tiraahdaa adduunka maxaa ka dhacay maasa ninka wuxuu ku dhaahdaa ma rabo in adduunka waxa ka dhacay kaaga sheekeeyo sababta waxa tii anaaniyad markaas ay ku tiraahdaa anaaniyad waan ahay anaaniyad waxa qofka naftiisa wax walba la jecel ee yacni nolosha aad u jecel baa dhahdaa markaas wuxuu ku dhaahdaa adduunka waxa ka dhacay baraf wuxuuna sababay in biyaha ay barafoobaan dadkina ay geeriyoodaan anagoo kaliyaaba ka hadna adduunkan oo xagan ku nool intaas maanta noogu soo gabagabeynaa asxaabay fadlan animiga soo coday ma lixdii xalqo ugu horeysa ni soo dhigaa oo 3 cisho la maqnaada mise maalin walba ni soo dhigaa 2 xalqo
codkiina comment-ka ku soo qora aan arki doonaa fadlan muuqaalka like saara subscribe soo saaro aan ilaawina in hadafkeennu yahay in gaarno 5k maca salaama wa shuufukum fi xalqa jaaye